السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسولو كورساقون channel iyo kororsaaqon.com labadaba. Muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa AI. dhowr qodob ayaan ka hadli doonaa. Qodobka ugu horeeya waxa weeyaan qaabkii aad u isticmaali lahayd AI models kala duwan adigoo ku duubaya computerkaaga aan una baahnayn wax internet yani without internet adigoo offline qaabka aad u isticmaali lahayd AI models ka aad jeceshahay sida kan u dambeeyay DeepSeek oo kale aad computerkaaga ku duubi lahayd haddii xogaa powerful computerkaagu yahay and then aad markaa u isticmaali lahayd xataa adigoo offline waxaan kaloo arki doonaa waxooga update yar oo aan ku sameynay course-kii full stack web development ka ahaa ee ku jiray kororsaaqon.com inagoo ku soo darnay markaa qayb AI ka hadlaysa ama project yar oo ku saabsan AI-ga inagoo dhisana markaa chatbot application marka isagana waan idin la wadaagi doonaa application yar oo su'aalo weydiin karto sidii ChatGPT iyo Gemini ama DeepSeek oo kale oo markaa waxyaabaha u baahan tahay ka caawinaya hadday code tahay hadday problem solving tahay anything ka caawinaya wuxuu qayb ka yahay markaa projectkaasi course-ka full stack ee ku jira kororsaaqon.com horena uga soo sameynay markaa muuqaal kale projectskiisoo dhan oo aad ka heli karto videoga ama description-ka aad ka heli karto ama videoga aan uga hadlayay aad channel-ka ka heli karto ama muuqaalkana daawanayso description-kiisa ugu dambeyn waxaynu ku soo gabagabayn doonaa muuqaalkeenan AI kale oo cusub oo ay again China soo saartay aan ahayn laakiin DeepSeek maaha waa mid kale oo ay soo saartay markaa shirkad kale oo Chinese gaar ahaan shirkadda Alibaba lana tartami karaya AIs-kii hore sida DeepSeek Gemini ChatGPT dhamaan kuwaas oo dhan la tartami karaya marka intaas aynu isla arki doonaa waxaynu ku bilaabi doonaa marka koobaad project-ga ku soo daray course-ka full stack project-kiisa already waan ka hadalnay marka haddaan isla fiirino kan wuxuu ku dhisan yahay React hadda waan rangaray already wuxuu ku rangaraysan yahay markaa portka 5173 marka haddaan soo rangarayno ama browser ka soo eegno ama soo furno localhost 5173 waa kan qaabkan inoogu soo baxaya waxaan odhan karnaa marka halkan haddaan qoro maybe hello and then wuu ii jawaabaya waxaan odhan karaa maybe what is the capital city of Somalia waa inuu markaa idhaahdo the capital city of Somalia is Mogadishu waxaan odhan karaa markaa maxaa lagu yaqaanaa what it is known for and then wuxuu iga soo jawaabay markaa waa kan inooga jawaabay wuxuu inoo soo saaray markaa waxyaabihii ay negative lahayd iyo waxyaabihii positive lahayd labadaba positive ka haddaan ku horeyno wuxuu leeyahay waa strategic location bay ku taallaa waxay leedahay taariikh qaniya iyo dhaqan labadaba dhaqaalaheedu uu korayaa waxyaabo badan musaa uga jawaabaya marka anything ood weydiiso uu kaaga jawaabaya sidoo kale wuxuu xasuusan karaa su-aashii u dambeysay weydiisay tusaale waxaan weydiiyey waa maxay capital city of Somalia and then wuxuu igu jawaabay waa Muqdisho chat history marka uu si xasuusanaya waxa ay maxaa lagu yaqaanaa marka wixii horan isweydiinay ama chatkii hore waxa xasuusanaya already ama wala save gareeyay chat history marka based on wixii markii hore aan isweydiinay hadda halkan ma sheegin maxaa lagu yaqaanaa ma jas qoray ma si raacin Muqdisho maxaa lagu yaqaanaa laakiin context-ka uu fahmaya inaan markii hore ka wada hadlanay Muqdisho and then wuxuu iga jawaabay marka wuxuu ka bilaabay marka Muqdisho ka bilaabay hadda refresh baan odhanay waxaan odhanayaa marka mataqaan JavaScript ama just waxaan odhan karaa list waxaad list garaysaa programming languages and then wuxuu list garayn doonaa programming languages kala duwan waa kan wuxuu gruubeeyaan filayaa categories buu sameeyay wuxuu ka bilaabay markaa programming languages general purpose programming languages gaar ahaan kuwa high level programming languages wuxuu ka bilaabay Python Java JavaScript C#, C++, PHP saas u waday haddana wuxuu gudbay kuwa low level programming languages sida C assembly kuwaas ayuu markaa xarigsa markaa inoo qorayo waxaan oran karaa halkan waxaad ii sheegtaa tell me wax ku saabsan ama just which programming language used for
front end development ama which language just waxaan qorayaa which one mideeba loo isticmaalaa front end development marka ma sheegayo halkan which programming language ma odhan laakiin already wuxuu garanayaa context inay ka hadlayaan programming languages marka midee loo isticmaalo front end development ka dhahdo haddana aan weydiino xogaa loading buu sameynayaa wuxuuna leeyahay inta badan waxaa loo isticmaalaa wuxuu ka bilaabay marka languageski xataa markup languageski sida HTML-kii styling CSS-ki JavaScript kan marka JavaScript oo programming language hadana dhahdo marka halkan wuxuu ku soo diray marka frameworkski iyo librarieska ay lahayd JavaScript anyway shay kastood weydiiso kaaga jawaabay marka kan ayaan sameyn doonaa oo ku jira course-ka full stack waxaan odhan karnaa may bari kartaa some Somali language words and phrases and then bulanigna wuxuu inoogu soo jawaabo wuu inoo soo jawaabay wuxuu ku bilaabay kelmadaha salaanta oo kale loo isticmaalo greetingska salaan ay bimaalin wanaagsan feed wanaagsan habeen wanaagsan mid kastiyo English waxay ku noqonaysay xataa qaabka loogu dhawaaqayo marka kan ayaynu sameyn doonaa wuxuu ku jira course-ka full stack dad booqato kororsaaqon.com and then aad tagto marka course-kan full stack dhammaan course-kan macluumaad ku saabsan waxaan ka sameeyay muuqaal hore sida road map-kiisa iyo projects kala duwan ee course ku jira marka projects aad fara badan baa ku jira ay kamid yihiin projects front end-una maybe qaar back end APIs haddana waxaan kusoo daray marka project-gan chatbot-ka baan kusoo daray marka intaa hore oo dhan already waan ka soo hadalnay laakiin muuqaalkan maanta waxaan aan jeclaystay maadaama waan ka hadlanay AIs in aan AI-gan aan kusoo darnay ama project-gan aan idinla wadaago topic AI-guna bariyahan aad buu hod u ahaa oo aad ba looga hadlay that's why project-gan laftiisa aan ugu soo darnay course-ka marka waxaan u gudbanaa qaybaha kale marka haddaan ku horeyno aan ku bilowno DeepSeek wiigagii u dambeeyay markaan browser-ka soo furno waxa suuqa aad u haystay AI-gan loo yaqaano DeepSeek ay shirkaddan Chinese-ki soo saartay AI-gan ay shirkadda Chinese-ki soo saartay ee loo yaqaano maxay DeepSeek ayaa wiigagii dambe suuqa aad u haystay marka AI-ga aad ayaa looga hadlay that's why aynu markaa muuqaalkan u sameynay sidoo kale aan project ku saabsan AI-na ugu soo darnay isla course-ka web development-ka okay marka AI-gan haddaan soo furnay start now aad tidhaahdo marka horeysa wuxuu ku leeyahay isdiiwaan geli marka haddaan idhaahdo login with Google and then accountskaygan aan mid ka mid a doorto Google accountskaygan continue aan idhaahdo marka qaabkan kugu soo baxaya sometimes waxaa laga yaabaa maybe inaad hore u tijaabisay waa suuragal inaanad hore u tijaabin waa dhici kartaa markaad isdiiwaan gelinayso dhowrkan wiiga u dambeeyey ama dhowrkan maalmood u dambeeyey marmar ayuu inaad isdiiwaan gelisa kaa diidaya isagoo oo leh awood uma lihin ama isma diiwaan gelin kartid waxaana ugu wacanay soo qorayaan maybe attack lanagu hayo ama weerar cyber ah oo lanagu hayo bay leeyihiin laakiin anyway hadda way naga aqbalo waan galnay sidii AI-skii kale ChatGPT Gemini sidii kuwii kale aan naqaan ayaad halkan ku qori kartaa marka hadba waxaad weydiinayso haddaan qoro hello and then wuxuu sameynayaa marka inoo soo jawaabo waa kan isagu wax badan markaynu halkan joogno si badan kagama duwana halkan waxaad ka samayn kartaa new chats lamada sidii ku kale ama buttonkan chat cusub markaad bilaabayso wuxuu leeyahay deep think oo ku sameynay reasoning yani markaad su'aal weydiiso ama problem ku xalinayo qaab ku xalinayo ku tuso search oo ah inuu website-yada ka search gareeyo ama maybe search engines-ka uu ka baadho hadba waxaad weydiiso waxa kale leeyahay inaad ku soo upload gareyn karto text files-ka sidaskooguna ugu badnaan uu yahay marka inta u dhaxaysa 50 ilaa iyo 100 MB yani maximum files ka soo diri karta waa content file ama content document oo sidaskoog midkiiba yahay meene 100 MB marka ilaa content file oo file kasta sidaskiisu ugu badnaan uu yahay 100 MB baad u soo diri kartaa uuna ku analyze gareyn karaa waana inay noqdaan file inta badan documents ama images marka hadday yihiin images wuxuu kala baxaya text oo kaliya qaybta text oo kaliya ayuu kala baxaya and then wuxuu ku sameyn karaa marka inuu analyze gareeyo inuu marka hadba waxaad ka weydiiso uu kaaga jawaabo kuwa kale laftigooda way leeyahay failasha in lagu soo upload gareyn karo file
bal hadda waxaan odhanayaa isagu waxyaabo kaga duwan yahay waxa kamid ah inta aanan u gelin inaan qaab manual la soo degno computerkeena ku duubno inaan isla si aragno bal waxyaabo kale ku samayn karno isagu waxyaabo kaga duwan kuwa kale waxa kamid ah haddaan halkan ku qoro tusaale ahaan waxaan u baahnahay inaan dhiso login page anigoo isticmaalay html and css only and then aan idhaahdo markaa ma iga caawin kartaa wuxuu inoo samayn doonaa markaa bal aan isla fiirino wuxuu ku leeyahay waa kan koodhkii html ka ahaa wuxuu inoo soo saaraya marka koodhkii buu inoo qorayaa html ka ahaa sidoo kale wuxuu inoo tusayaa maybe css koodhkii waa kan isaguna marka isagu wuxuu kaga duwan yahay kuwii kale oo dhan waxa weeyaan wuxuu leeyahay halkan inaad koodhkan rangarayn karto isaga aad ku dhex rangarayn karto kuwa kale inaad koobiyeyso weeyaan koodhka and then aad geysa marka maybe text editorkaaga sida VS Code ama Sublime oo kale laakiin kan isagu muxuu leeyahay meel aad ku rangarayn karto maybe fileashi hadaan kan ku dhufto run html oo kale wuxuu noo rangarayn doonaa fileka inoo sameeyay waa kan login form yar buu inoo sameeyay aad uma qurux badna waxaan odhan karnaa waxaad isticmaashaa internal styling hadda waxaan isticmaalay markii dhaweyd laba file buu ka kala dhigay css filekina gaar buu ka dhigay html filekina gaar buu ka dhigay that's why styling inoogu soo saari waayay marka hadda waxaan idhi waxaad isticmaashaa internal styling oo ah inaad stylekii iyo ama css iyo html kiiba hal file aad ka wada dhigto marka tusaale waan suganaa inta inoo dhammaynayo okay inoo dhameeyay haddaan run imika idhaahdo waa kan cali stylekii isagoo wata waa kan inoo soo saaray marka waxyaabahan oo kale uu kaga duwan yahay waxyaabo badan oo kale uu kaga wanaagsan yahay kuwii kalena way jiraan sida inuu ku tusi karo maybe qaabka uu problemka wax linay qaabka uu fikirayo qaabka su'aasha isku weydiinayo dhammaan kuwa kale intooda badan ma laha meel aad ku rangarayn karto html fileska sida maybe Gemini oo kale ma laha ChatGPT na ma laha intaan arkogahay way marka waa feature markii horeysay la yimid oo aad feature-kani oo caawinaya dadka maybe baranaya web development oo kale ama coding okay kaasi wuxuu ahaa chatkii caadigii iyo inuu inoo rangarayn karo ama inoo samayn karo code soo kale inoo rangarayn karo waxaad oran kartaa kan ayaan tig saari karnaa just ka hore waxaan weydiinay chatting caadi ah normal chatting haddaan imika weydiiyo kan deep think haddaan kan tig saaro waxaan oran karaa maybe can you polish a little bit by adding a title and making it responsive already responsive waha laakiin bal wuxuu ku daro baan arkanaa markaan weydiina markaan deep thinking aan tig saaro ama aan check gareeyo halkan waxaad arkaysaa in thinking sameeyay wuxuu ku leeyahay userku wuxuu inaga rabaa inaynu xogaa polish ku sameeyno login page kan inagoo ku darana xogaa title oo kale ku darana sidoo kale responsive ka dhigana marka balaynu code-kii hore dib u eegna buu ku leeyahay aan siinay version-kii u dambeeyay waxa la isticmaalay internal styling saasaynu ku shaqayn doonaa internal styling kaasan isticmaali doonaa buu ku leeyahay marka koobaad aan kusoo darno wuxuu ku leeyahay title ka horeeya wuxuu ku jiray title tag laakiin userku wuxuu u baahan yahay title visible sida login oo kale oo browser ka soo muuqda waa kan halkan nagu soo qoray h2 buu isticmaalaya everything step by step qaabku u xalinaya problem-kan buu ku tusayaa stylingku isticmaalayo everything structure-kii qaabku u qorayo wuxuu ku soo daray header section ayaan ku soo darayaa login container-ka halka sareysa buu ku leeyahay maybe waxa ay noqon kartaa site name-ka iyo welcome message buu ku leeyahay marka balaynu aragno code-kii inoo generate gareeyay marka kaasi waxyaabo kaga duwan kuwii kale deep think iyaga laftoodu way leeyihiin laakiin kani uu la yimid markii horeysay waana super cool still wayna wada code-kii hadda wuxuu bilaabay header-kii wuxuu isticmaalay div class-kiisa wuxuu ka dhigay header h1 buu soo geliyay welcome to my app please log into your account wuxuu soo geliyay markaa winoo dhamaystiray haddaan idhahdo markaa run html waxaad arkaysaa markaa waa kan login page-kii hadda qaabkan u ka dhigay wuxuu kusoo daray xataa qayb create account oo kale markaan click siino walow hadda unu page kale jirin login page oo kaliya inoo sameeyey laakiin waxaad arkaysaa login page aad u qurux badan inuu inoo sameeyey inuu login page aad u qurux badan inoo sameeyey marka DeepSeek waxyaabaha cajiibka uu ku yahay bay ka mid tahay okay anyway
waxa kale maybe su'aalaha weydiiso ama wax kasta weydiiso wuxuu ka baari karaa webku ka baari karaa. Aan ka gudubno taas wuxuu ahaa just DeepSeek. Waxaan arkay dad badan oo DeepSeek leh maybe waxyaabo badan buu ku liitaa, waxyaabo badan oo ku fiican yahay. Marka inta badan dadku waxay wax ku weydiinayaan su'aalaha Soomaali, luqadda Soomaaliga aad ugu wanaagsan. Hadda English markaad wax ku weydiiso si wanaagsan buu kugu jawaabay, laakiin Soomaaliga waxaan ku arkay in errors badan soo saarayo ama uusan si wanaagsan u fahmin hadba waxaad weydiiso, maybe dhanka la u qaadayo. Marka dhanka Soomaaliga oo kale waxaa kaga wanaagsan ChatGPT, laakiin waxyaabo badan oo kana kaga wanaagsan yahay baa jira ChatGPT. Anyway, muhiimadanu ma ahayn in review badan ku sameeyno DeepSeek. Waxaan u gudbanaa bal DeepSeek laftiisa ma ku isticmaali karnaa local computerkeena, yani ma soo download garaysan karnaa AI modelka oo dhan hadba kaan u baahano, computerkeena ma ku duubi karnaa oo hore ma ka isticmaali karnaa, iyo AI modelska kaleba. taas ayuu muuqaalkeenu ku saabsanaa. Marka si aan taa u samayno, waxaan samaynayaa maybe tab cusub aan soo furanayaa. Tilaabada koowaad aan sameynaya waxa weeye markaas aan ugu isticmaali karno computerkeena maybe qaab localiya, inagoo aan u baahnayn wax khad ama wax internet ah, inaan marka koowaad samayno meel aan ku ran garaynin in la soo degno. Marka waxaan ugu horeeya wax loo yaqaano LM Studio dad search garaysa. Marka LM Studio kan u horeeya, and then aan click siyo soo furo. waxaad ku duubi kartaa hadaad isticmaalayso Mac, hadaad isticmaalayso maybe Windows, hadaad isticmaalayso Linux, inta waad ku duubi kartaa. waxaad ku ran garayn kartaa marka AI models kala duwan computerkaaga oo ay kamid yihiin Llama, maybe DeepSeek iyo qaar badan oo kale. marka labada ugu caansan imika waxa weeyaan DeepSeek iyo Cursor weeyaan. kuwa kale laftooda iyagana waad isticmaali kartaa. Okay, waxaan u baahanahay marka inaan la soo dego. waxaan ku dhufanayaa hadda waxaan isticmaalaa Windows machine. waxaan ku dhufanayaa marka download LM Studio for Windows. aan click siiyo, waxaan isticmaalaa IDM kii baa hore iga soo qabanaya. haddii kalena downloadkii baa xaggan kaaga bilaabi doona. hadda waxaan ku dhufanayaa start download, and then downloadkii baa hore ka bilaabaya. ma aha file sidaas u sii size-kiisu badan yahay, waa 455 MB oo keliya. waxaan iska suganaa intuu inoo dhammaynayo. waxaan isku soo noqon doonaa markuu downloadka inoo dhammeeyo. marka application-kan LM Studio iyo waxaa jira mid kale oo loo yaqaano Llama. inagu waxaynu isticmaali doonaa labadaba, waan tijaabin doonaa. marka imika waxaan ku horeeyay LM Studio, waxaan suganaa intuu inoo dhammaynayo downloadka. marka wuxuu inoo ogolaanayaa inaan ran garayno AI models kala duwan sida DeepSeek oo kale, inagoo ku ran garayna marka local machine-keena ama computerkeena, inagoon xataa wax khada isticmaalayn. hadda downloadku waa inoo dhameeyey. haddaad IDM isticmaalayso qaabkan kugu soo degi doonaa, haddii kalena xaggan downloadka ayuu kaaga soo bixi doonaa. Okay, open folder baan ku dhufanaya anigu. wuxuu soo furayaa downloadska maybe machine-kayga ama PC-gayga. halka waxaa igu jira marka LM Studio oo kan soo download gareeyay. 2 jeer baan click siinayaa si aan ugu duubo computerkan. waxaan odhanayaa marka users oo dhan ha isticmaali karaan ama only maybe userkaaga kaliya. marka waxaan odhan karaa dhammaan users computerka isticmaalaya ha isticmaali karaan, and then next baan odhanayaa. next markaan idhaahdo, screen buu kusoo saari doonaa. yes baa ku dhufan doontaa. inta badan screen recorder kuma duubo. yes or no, and then yes waxaad odhan doontaa marka install markaan idhaahdo, wuxuu bilaabay installation-kii ama inuu LM Studio inoogu duubo computerka. installation-kii waa inoo dhameeyey. waxaan tig saarayaa marka run LM Studio, finish ayaan ku dhufanayaa, and then hore ayuu inooga bilaabi doonaa marka inuu soo start gareeyo LM Studio. okay, markuu soo furmo qaabkan uu soo bixi doonaa. maybe marka horeed soo furto waxoogaa in difference u dhexeeyo. marka waxa laga yaabaa inuu welcome screen kuu soo saaro. sababtan igu soo saaray wax kale ma aha, LM Studio computerkii hore ugu duubnaa, hore ugu jiray. marka si aan idinku tuso, idinkuna baro qaabka loo isticmaalo
looguna duubo computerkan kii hore igu jiray aan iska saaray mid baan qaabka loola soo degay inta tusay iyo qaabka loogu duubo that's why marka uu igu soo saari waayay aniga welcome screen-kii maadaama horeba uu isticmaali jiray computerka already ku jiray balse aan ka saaray just si aan idinka idin tuso anyway welcome screen-ka markuu soo saaray halkaas sare waxa ku qoran button ay ku qoran tahay skip corner-ka midigta ee sare marka skip tiraahdo marka screen-kan ku keeni doona screen-kan ama daaqadan waxaad ku samayn kartaa inaad chat cusub samayso oo create new chat click siiso waxa kale oo samayn kartaa halkan inaad samayn karto maybe models-kii kala duwan aad ku soo darsan karto halkan sarena inaad ka dooran karto marka AI models-ka aad u baahan tahay marka aniga imika waxa ku jira DeepSeek R1 1.5 anyway adigu waxaad samayn kartaa marka halkan ayaad iman doontaa marka stepkan aad joogto halkan kaale halkan ay ku qoran tahay discover ka bacdina halkan ka baadh marka maybe DeepSeek oo kale ama AI model-ka aad u baahan tahay inaad rangarayso marka halkan waxa kugu soo baxaya models kala duwan ee DeepSeek oo aad u fara badan waxay ku kala duwan yihiin marka hadba maybe modelka la soo degaso wuxuu ku xidhan yahay hadba awoodda computerkaaga marka qaar kamid ah kuwan hadda la soo degto waxa laga yaabaa in computerkaagu culays badan dareemo laakiin nagu waxaan isticmaali doonaa 1.5 mid la yiraahdo 1.5 DeepSeek 1.5 marka just waxaad qortaa 1.5 wuxuu ku soo saari doonaa marka DeepSeek R1 hadaad click siiso marka DeepSeek 1.5 and then waxaad arkaysaa marka DeepSeek R1 1.5 maybe billion okay marka kan aynu isticmaali doonaa marka already anigu waan ku duubay laakiin qaabka lagu duubaa waa very simple marka timaado tusaalaan kan oo kale nimidba maybe kii ka duwan yahay xogaa farqiga u dhaxeeya waxaad iman doontaa halkan ay ku qoran tahay download ayaad ku dhufan doontaa halkan ay ku qoran tahay download markaan ku dhufto wuxuu samayn doonaa inuu soo download gareeyo marka modelkan oo kale waa 1.1 almost waa 1 GB oo wax yar dheer oo 1 gigabyte size-kiisu gabi ahaanba DeepSeek gaar ahaan version ama modelkan laakiin modeliska qaar waxa laga yaabaa haddii aad isticmaalaysid tiraahdo la soo degto in computerka ka cusleeyaan waxayna ku kala duwan yihiin marka mid walba midku ka maybe size-kiisu ka duwan yahay waa more intelligent more powerful wuxuu u baahan yahay more processing power ayuu u baahan yahay marka inagu hadda kan aynu iska isticmaali doonaa light version-ka laakiin hadda halkan ma baadhno just DeepSeek oo kaliya DeepSeek download screen-kan xaggan hoose iska dhigo and then DeepSeek waxaad arkaysaa mid ay ku qorantay math haddaan kan oo kale click siino waxaad arkaysaa inuu 4 gigabyte oo kale kan uu yahay kan kale haddaan baadhno waxaad arkaysaa isaguna waa 4 GB kan kale haddaan eegno waa 7 GB anyway inagu imika mid ayaan la soo deganaa marka adiguna waxa laga rabaa inaad mid la soo degto laakiin haddii computerkaaga awoodiisu aynay aad u sii badnayn RAM-kiisu oo kale inta badan computersku waa 16 iyo ardayda badankoodu waxay isticmaalaan laakiin haddii processorkiisu iyo RAM-kiisuba ay waxoogaa computerka daciif yihiin kugulama talan inaad stabiskan samayso just aqoon ahaan nimka u sii qaado laakiin haddaad computer processor powerkiisu ama processing powerkiisu aad u wanaagsan yahay haysato RAM-kiisuna fiican yahay waad tijaabin kartaa okay hadda waxaan suganaa intuu inoo dhammaynayo downloadka markuu downloadka inoo dhammeeyo waxaan isla arki doonaa qaabkaan u isticmaali lahayn okay waa inoo download garay isagana sidaas lamid ah waxaad samayn kartaa imika just DeepSeek baan tijaabinay AI models kalena waad tijaabin kartaa marka halkan dhammaantood ku wada jiraan Gemma oo kale waxaad tijaabin kartaa kuwan kale wada tijaabin kartaa okay marka kuwan oo dhan waad tijaabin kartaa sida kan oo kale isaguna caana anyway waxaan imika odhanayaa kan hadda la soo degnay xaggan hoose wuxuuna leeyahay load and then load model baan odhanaa haynoo soo load garay xaggan sare haynoo soo geliyo isaguna intuu xaggan sare inooga soo saarayo ama inoo dhammaynayo okay hadda inoo dhameeyey marka xagga sare waxaad dooran kartaa models kala duwan waxay noqon karaan DeepSeek waxay noqon karaan maybe any other AI model oo aad la soo degtay waxay nagu jiraan computerkaaga qaab loo kale yacni هذا كمبيوتر كذا استعمال كرتا هذا قون وباهنين إن خاص كوكل استعمال هذا just عن قرية hello كله and then ويني سوت جواب وكني سوت جوابي وحوله مركا hello how can I assist you today محل منطقة عاوية
waxaan samayn karaa marka inaan khadka iska xidhno marka si aan u tijaabino hagan wifi-ga imanaya ama wax soo furaya network-ga airplane mode baan gelinayaa inta markaan sameeyo waxaan oranayaa marka halkan ayaan ku soo noqonayaa waxaan oranayaa marka what is the capital city of China and then wuxuu sameynaya xogatinkina okay waa kan wuxuu soo saaray marka the capital city of China is Beijing usii qeexay weliba very fast maaha oo hadda processing power computer kan ku isticmaalayo waa virtual machine that's why marka hore uu ugu soo jawaabin laakiin uu ku shaqeynaya dad computer awood badan leedahay waxa qalan kan dhigaya tusaale ahaan maybe new chat but kana click siin karna new chat waxaan kale waxaad list karaysaa some maybe programming languages and then enter dhahdo wuxuu inoo sameyn doona marka inuu list karayo qaar kamid programming languages kala duwan wuxuu soo saaray marka Python uu sii qeexay wuxuu leeyahay Python waa high level versatile programming language loo isticmaalo web development iyo data analysis ka Java uu soo saaray Java wuxuu leeyahay object oriented programming language wuxuu leeyahay C++ wuxuu leeyahay waa powerful general purpose programming language JavaScript wuxuu leeyahay client side scripting language loo isticmaalo web development ka Node waxay hoos waa runtime environment inta badan loo isticmaalo lagu ran gareeyo JavaScript laakiin iyadu maaha programming language gaar ah Node.js maaha programming sidoo kale maaha framework waa runtime environment lagu ran gareeyo JavaScript without the browser TypeScript wuxuu noo soo saaray marka C# wuxuu noo soo saaray Rust let's see Go in programming language wuxuu marka programming languages kana kuwa inta badan lagu isticmaalo applications ka industries kala duwan iyadoo ku xirantay hadba marka waxyaabo project aad sameynayso u baahan yahay project aad sameynayso hadba uu nooc u yahay waxaad arkaysaa marka in khadkii oo aan furnayn computerka aan soo eegno waxaad arkaysaa in airplane mode saaran yahay wax network aan isticmaalayn haddana inaan AI ga isticmaali karnaa arkaysaa marka just hadda waxaan isticmaalnay DeepSeek kuwan kalena waad tijaabin kartaa waxaan sameynayaa marka imika kani marka wuxuu ahaa qaabka loo isticmaalo LM Studio adigoo isticmaalaya marka ama ku ran gareynaya AI models kala duwan mid kale isaguna caana jira oo loo yaqaan haddaan khadka iska furano nooc kale ama mid kale oo loo yaqaan waxa isaguna jira Olama dan marka kan iska xidhno and then browserka ku noqono aan search kareyna marka Olama waa kan galno website ko click aan siino waa kan isaguna hadaan ku dhufto marka isaguna waa lamidkii hore download hadaan ku dhufto hadaan marka download for Windows and then button click siin doontaa si lamida sida hore kaaga download gareyn doona marka ma rabno muuqaalka dheeraanaya inaan imika dib isagana u download gareyn already waan download gareeyay waxaan tagayaa downloadiska computerkayga halka waa kan igu jira Olama laba jeer baan click siinayaa si aan isku laarigno installationkiisa just install baan odhanaa wuxuu isaguna qaadanaya installationka waqti aan badnayn waan sugnaa intuu inoo dhammaynayo Olama installationkii waa inoo dhameeyay isagu malaha wax user interface laakiin waan u isticmaali karnaa oo UIs badan oo waxaan isticmaali karnaa ama inagu aan samaysanay ama aynu ka helnay marka qaar already laynoo diyaariyay marka isaga waxaad ku taskarayn kartaa hagan hoose haddaan soo furno waxaad arkaysaa maybe apps inoo rangaraysan kan ayaa kamid marka waa kan Olama inoo rangaraysan yahay just marka installation ka dhamayso marka isaga si aad u isticmaasho again waxaan ku noqonaa website koogan waxaan tagnaa halkan models AI models kala duwan aan isticmaalnay halkan ku jira marka AI models kala duwan aan halkan ku isticmaali karnay ku jira waxa kamid marka kan u dambeeyay inuu hadda kan ku tijaabinay DeepSeek R1 hadaan click siya marka wuxuu inoo soo saarayaa modelskii DeepSeek R1 laakiin wuxuu leeyahay versions kala duwan
marka anigu waxaan dooranaynaa 1.5 kaas oo ay kuwan kale siskoogu u badan yahay processing powerkii u baahan yahay u badan yahay marka imika tusaalaan ka u dambeeyo kale macquulba ma ahayn computer maybe PC ama personal computer lagu ran garayo server iyo waxyaabaha kale mooyaan anyway inuu ka horreyn iska isticmaali doonaa ande waxaan ku biisanaa command-kan aad ku biisanaysa badan kana kliksin kartaa waxaad soo furtaa marka terminalka computerka soo fur ama command line-ka ama PowerShell-ka hadba ka isticmaasho and then halkan ku biis karaa marka command-ka aad soo koobistay enter baan siinana enter markaan siino wuxuu sameeyaa hadii uu hore kugu install garaysnaa Olama wuxuu bilaabi doonaa inuu marka ku soo dejiyo DeepSeek R1 1.5 sidaan hore ugu soo aragnay markaan kula soo deganay LM Studio wuxuu 1 GB 1.1 GB buu ahaa halkana waa la mid weeyaan marka waxoogaa waqti u qaadanaya markaad la soo degto intaa wixii ka dambe waad isticmaali kartaa marka waxaan suganaa intuu inoo dhammeeyo downloadka waxoogaa waqti u qaadanaya waxaan isku soo noqonaa markuu downloadka inoo dhammeeyo okay marka saa inoogu dhameeyo hadda waxaan weydiin karnaa markaa su'aal baan weydiin karnaa tusaale waxaan qori karaa just haddaan hello qoro think buu samaynayaa and then kuu soo jawaabaya waxaan odhan karaa how can you help me and then wuxuu ku leeyahay of course I'm here to help you whether you need assistance with a specific task or have any question okay what is the just waxaan karaa maybe list some programming languages and then wuxuu samaynayaa marka wuxuu inoo list garayn doonaa programming language 20 luqadood ee programming languages ka ugu caansan wuxuu ka bilaabay Java hareeraan wuxuu ka marinayaa Istrix oo waxay ka dhigan tahay wuxuu isticmaalayaa Markdown marka haddaad front end ku soo xidho Markdown aad isticmaasho already formatkii everything uu ku leeyahay marka wuxuu leeyahay Java waa general purpose programming language Python C# JavaScript HTML CSS Git ما programming language of version control system طبعا Rust Node.js لفتيق maaha version maaha programming language لكن waa runtime environment siga inoo sheegayaba loo isticmaalo server side programming Go Erlang Objective C wuxuu noo soo saaray F# R programming languages badan ayuu noo soo saaray marka isagana waxaan u samayn karnaa front end application oo ku soo xiri karno again markaad rabto inaad isticmaasho hadan tab cusub soo furtay imika terminalkaygan ama PowerShell-ka andana screen-ka iska clear gareeyo oo aan dib u rangareyso command keys marka hore aan soo koobisanay hadda already uu noo download gareysan yahay wuxuu ku odhanayaa hore ka isticmaal marka haddaan mar labaad qoro hello waxaad arkaysaa inuu soo jawaabay haddaan internetka iska xidho still uu shaqeynaya waxaa jira marka UI environment ama graphical user interface aad ka isticmaali karto ood ku soo xidhi karta kan oo badan laakiin hadda just imika intaas ayaan ku daynanaa muuqaalka dheeraanaynta wixii ka badan ugu dambeyn waxaynu isla arki doonaa weli muuqaalku dheeraaday AI cusub oo soo saartay China marka Brian China suuqeedu haysata waxaan soo furay browser-kan isticmaalayo waxa loo yaqaanaa dad gasho maybe aad search gareyso Qwen 2.5 waa kan Qwen 2.5 waa AI-ga weeyaan marka haddaan soo furno IB Qwen 2.5 chat waxaan qoray Qwen 2.5 chat and then kan u horeeya URL-kiisu yahay chat.qwen.ai soo fur aad click siisa markaa wuxuu noo soo furi doonaa midkan ayuu noo soo furaya kan laftigiisa waxaa iskale shirkadda Alibaba shirkad caana waan isdiiwaan gelinaa markaa si aad isku diiwaan geliso qaabkii programmada kale uu la mid yahay ama AI-ska kale waxaan ku dhufanaa halkan sign up and then continue with Google
waxaad halkan dooran doontaa marka Google account-ka aad rabto inaad ku gasho. Okay, and then confirm. intaan waxaan filayaa qof walba inuu garanayo aan imika soo sameynay. wuxuuna leeyahay verify, waxaad verify garaysaa inaanad robot ahayn adigoo kan slide ku sameyn. halkan click siiye slide ku sameyn lahayo koornahan, and then halkan ayuu keenay. marka wuxuu la mid yahay qaabka uu shaqeynayo user interface-ka dhammaan waa isku wada mid AI-ska oo dhan badankoodu. halkan tan ku qoran markaa tusaale ahaan hello, wuxuu inoo soo jawaabaya markaaba. waxaan odhan karaa maxaad ii qaban kartaa, what can you do for me. daan markaa inta idhaahdo wuxuu ku leeyahay waxaan kaaga jawaabi karaa su'aalo, waxaan kuu qori, waxaan kaa caawin karaa inaad qorto script, email, gabay, waxyaabahaas oo dhan. waxaan kaa caawin karaa programmingka, oo waxaan kala shaqeyn karaa projectska codingkeed sameynayso. waxaan kaa caawin karaa inaad qorto codeka, inaad debugging ku sameyso, in aan ku siiyo sharaxaad meelaha qaar aad codeka uga baahan tahay. waxaan ku sameyn karaa buu leeyahay language translation, oo luqado kala duwan baan ku sameyn karaa inaan turjumaad ku sameeyo ama isugu kaa turjumo. waxyaabuhu inaga caawinayo dhan baa halkan ku jira. ama generate a login form using HTML and CSS. wuxuu la mid yahay markaas sidii DeepSeek. haddaan imika enter idhaahdo promptkaas wuxuu soo saari doonaa markaa codekii HTML iyo CSS-ka ahay login formka uu ku sameyn lahaa. marka bal waxaan tijaabin karnaa isagana inaan kusoo dhex furi karno. hopefully waan kusoo dhex furi karnaa. isaguna wuxuu leeyahay qaybtan artifact. markuu inoo dhameeyo isagu ma laha button run oo kale ay ku qoran tahay sidii DeepSeek, laakiin haddaan halkan ku dhufan artifact ay ku qoran tahay. response-kan dambeeyna siinay buu ka baari doonaa code gaar ahaan HTML iyo CSS, and then halkan ayuu nooga soo saari doonaa. marka waan suganaa. marka xataa waxaan samayn karnaa inaan ku soo dari karno maybe functionality. tusaale waxaan odhan karnaa halkan haddaan tagno new chat, and then waxaan odhan karaa marka waxaad samaysaa to do app that has features like adding task, removing, mark as complete, ama marking as complete, using only HTML, CSS and JS. marka haddaan rangarayno wuxuu sameyn doonaa marka to do application. bal suganaa qaabku inoogu soo saaro. waxaad arkaysaa codekii xataa uu kala qaadaya. kani waa codekii HTML-ka. waxaad geyn kartaa buu leeyahay faylkaaga loo yaqaan index.html haddaad isticmaalayso VS Code intaad soo furato ama text editor-kaaga. styleka laftiisa waxaad geyn kartaa buu leeyahay faylka styles.css-ka. codekii javascript-kiina waa kan inoo generate gareeyay. waa kan. waxaan samayn karnaa waxaad arkaysaa halkan buttonadii buu sameynayaa. almost uu dhameeyey. wuxuu inoo sharxay qaabku u shaqeynaya application-kani. anyway haddaan rangaraysan isagana rangarayno ama isla fiirino artifact ayaan click siinayaa. isaga ka baari doona response-kan file HTML, file ama code javascript iyo code CSS. waxoogaa waxaad arkaysaan in uu layout-kiisu waxoogaa inuu yar isku dhex daadsan yahay. button-kan oo kale inuu koornaha ka baxay bogoskii. anyway haddaan isku dayo inaan markaa bal tijaabino inuu noo shaqeynayo, waxaan kusoo daray markaa task 1 oo kale. add task baan idhi, wuu inoogu soo darayaa. waxaan odhan karaa task 2 add baan odhanayaa, uu kusoo daraya task 2. waxaan odhan karaa markaa remove oo button-kan click siin karnaa, wuu inaga saarayaa. waxaan odhan karaa mark as complete ama check ayaan click siin karaa. waxay ka dhiganta taska waan qabtay. marka very cool weeyaan, aad buu wanaagsan. marka anyway mar kale muuqaalka ka samayn doona. haddii aad xiisaynaysaan AIs badan ayaa jira wax badan qabta, muuqaal kale ayaan ka soo samayn doonaa. anyway wuxuu leeyahay si lamid ah sidii kuwii kale web search oo waxbaad ka baari kartaa, webka uu ka baari karaa.
أما وكبار كلا search engines كا وحجنرد كرين كلا كان حتى images مركا أديكم مركا هري maybe code يبغى context كوني مكان كود هذلني أداني مكان سميه new chat هذا image generation من دورنا كرا حرنا كرا I need a Somali boy maybe just smiling Somali boy using MacBook Pro image generation ما دورنا كرا video generation حتى video بكون generate كرين كرا ولكن image generation دورنا وحين إنه ويدينا يا image كه ما وحنا ربنا square وكله ما وحنا ربنا maybe horizontal النقطة ما vertical بان ربنا maybe وحنا ربنا image كان يندورنا flat أما landscape هذا مركز send message option كنا وحنا كدورنا مركز image generation وحصمينا إنه image كنا generate كرايو and then وكان نكون ينوصل صاري لكن واحد بدن باكا مقال لكن مركي وجوه رئيسي maybe حد AI جن صو صارين مركا مستقبلك حلقة يا بينو واحد بدن يكسي مربى هدي بلو جوه هو قاب كين هاي وحلقة يا مستقبل كينو أما features كيسة تنبيه ما updates كيسة تنبيه واحد بدن أي سي update كرين دونا نو وقاب كان كسي وناكسنا دونا سيدو كله واحد كسو channel كرين كرتا فيديو waxaad ku soo upload karin kartaa documents uu ku analyze karin karo images waxyaabahaas oo dhan intaas ayaan ku deynaa muuqaalkan uu dheeraaday muuqaalku haddii aad xiisaynaysaan AI-ska iyo topigyadaas waxaan samayn doonaa markaa qaabka looga faa'iidaysto qaabka loo isticmaalo AI-ska kala duwan just imika dhowr baan ka soo hadalnay waxaa jira AI fara badan oo kale shaqooyin badan oo kala qabta marka maybe muuqaalo kale ka samayn doonaa mid kolba mid baynu ka samayn doonaa in detail uga hadli doonaa laakiin just imika brief introduction buuha intaas ayaan ku deynaa muuqaalkan maanta aad ku mahadsantahay daawashadaada thank you